bismillahi rahmaani rahiim. Waxaan rabaa inaan bilowno markaa qaybihii aan soo wadno SPSS-ka ahaa. Waxaan marinaa analyze-ka sida loogu sameeyo analyze si loo helo frequency table. Waxaan rabaa marka inaan ku tuso sida aad u samayn lahayd frequency table. Marka waxaan soo gelinay sample data-dii aan sameynaynay, kadibna oo waxaan ka soo gelinay variable view-gii, waxaan u gudbaynaa data view, waxaan gelinay answer-kii. Kadib markaan rabno inaan analyze sameyno, waxaan ku dhufanaynaa menu-ga ay ku qoran tahay analyze oo aan bixinay heart of SPSS. Marka sida ku dhufto, waxaan soo raacayaa descriptive statistics. Waxa ugu soo horeeya descriptive-ka oo inta ku qoran waa frequency. Frequency wuxuu inoo samayn doonaa frequency table ayuu si toos noogu samayn doonaa. Click C, waxaa noo soo bixi doono box ay ku qoran tahay frequency ay ku qoran tahay. Box-ku waa kana su'aasha aan rabno marka inaan table ka sameyno ayaa inta soo gelinaynaa. Haddii aan rabno inaan kulli wada sameynana, waxaan samayn karnaa inaan highlight-ka kulli wada saarno. Anoo box-ka dhinacaan taagan aan waxaan qabanayaa control A, kulli waxaa ku dhacaya inay highlight garoobaan. Kadibna bahashaan yartu waxay ku magacaabaa entry. Waxaan ka soo qaadaa markaa box-ka ay ku jiraan, waxaan wada keenaa variable box-kaasi. Waxaan leeyahay marka kulligood ii samee table-ladooda. Waa samayn karaa inaan ku darsado waxyaabo kale oo table gooni ay samayn doonaan, sida mean, standard deviation, wixii aan rabo. Ama haddii intaan aan rabinna waxaan ku darsan karaa charter-ka nooca aan rabo. Haddii aan rabinna waxaan samaysan karaa format-ka inuu ekaan doonaa. Waxaasoo dhan waa qurxin. Waxaan leeyahay markaa okay, si automatic ah data-da wuxuu ku xareynayaa meesha aan taaganahay waa SBS data editor, wuxuuna geenayaa SBS output viewer. Kan ayuu ku xareynaa wixii jawaab laga shaqeeyay. Su'aalihii waa kuwaana, table-ladooda su'aalahan inta ku qori doonaa. Soo qaada marka wuxuu ku jiraa process hoos soo jiid, wuxuu sameynaa table-ladii. Table-ka uu soo horeysiiyey waa table-kan haddii ay jiri lahayd missing intaa ka dareemi lahaa wixii data-da entry-ga aan geliyay wax missing ah. Laakiin wax missing meesha kuma jirto. Sidoo kale frequency table isku mid u sameeyay table-ka su'aal kasta table gooni ka dhigay. What's your gender? Table ka dhigay. How old are you? Table ka dhigay. Mid kasta table gooni ka dhigay. Table-daas marka waxaan sameynayaa inaan soo qaado aan waxaan geysanayaa word-ka si fudud. Waa fududahay. Waxaan samayn karaa inaan hal u qaado. Waxaan samayn karaa inaan kulli wada qaado. Inaan kulli wada qaado waxaa i raacaya table-lada aan rabin. Hadda control A aan sameeyay waxaa i raacay table-ladan kale. Macnaheedu kuma fadhido hadhow marka xaggee waa iska reebi karaa. Haddana waa reebi karaa. Hadda marka inaan reebo aan rabo, waxaan qabanayaa control-ka kii aan rabin aan kala kusiina oo iga haraa. Kii aanan rabin inuu soo raaco isla markiiba waa iga haraa. Waxaan ka wadaa markaa isoo raaci maayo. Isoo raaci maayo. Marka intaa marka aan highlight gareysto oo table bas highlight gareysan yihiin, table dushooda waxaan ku siinayaa right click. Sorry. Ana control-ka haya. Marad ku soo celiyo. Ana control-ka haya. Ama waxaan sameynayaa right click. Raalli hada. Waxaa ka fudud inaan sameeyo control C oo inta i highlight gareysan aan soo qaado. Kadib waxaan furayaa word-ka. Microsoft Word ayaan furanayaa. Marka waxaan soo shidaynaa word-ka. Word-ka markuu soo furmo waxaan control V ku leenahay ama right click paste ku leenahay wixii aan soo koobiyeynay. Wuxuu tixi doonaa markaa table-ladii aan ka soo qaaday xaggaas ayuu tixi doonaa. Wuxuu ku daray table-ka oo note-ka u bixiyay. Isaga macnaheedu kuma fadhido. Iska tirayaa.
laakiin teebaladii kale aan rabay waa kuwaan waa sameeyey ayadoo dhammaystiran. halkaas waxaan kugu tusi markaa sidee frequency table oo ka samaysan class intervalkii oo male and female ah, frequency numberkii, percentage-kii iyo value percentage laba isku mid yihiin iyo cumulative ka samaysan sida lagu sameeyaa analyze-kaaga. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.